wararka aanu ka helayno magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in xaaladdu ay hadda tahay mid degan kadib dagaalo xoogan oo qaatay 2 maalmood oo ku dhaxmaray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ahlu sunna. dagaaladaas ayaan weli si rasmi ah loo sheegin khasaaraha uu geystay, balse ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay xarunta Inji oo saldhig u ahayd madaxda ahlu sunna. madaxda ahlu sunna ayaa la sheegay in ugu dambeyn ay isku dhiibeen dowladda Soomaaliya, waxaana si gooni ah saxaafadda kula hadlay magaalada Dhuusamareeb madaxa xukuumadda Galmudug horeyna uu ahaa madaxweynaha garabka ahlu sunna Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo waliba hogaamiyaha guud ee culimada diinka ahlu sunna Macalin Maxamuud, waxayna si toos ah u cadeeyeen mowqifkoodii kaga aadanaa siyaasadda Galmudug. waxaan halkan ka sheegaynaa oo ka cadeynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan in aan go'aansanay in aan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalino. taas daraadeed ayaan waxaan u sameynay tanaasul aan u tanaasulnay shacabkeena markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay waliba ka sii badan ayaan waxaan sameynay tanaasul aan u sameynay. marka bulshadeena waa jecelnahay, waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga, la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba. haddana horana dowladda federaalka Soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay. haddeerna waxaan leenahay amnigii Galmudug oo dhan dowladda federaalka Soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa, laga rabaa inay iyadu u samayso ciidankii Galmudug laga rabaa in la ilaaliyo ummadda shacabka, laga ilaaliyo argagixisada la rabaa. mas'uuliyadaas waxaan rabnaa dowladdu mar labaad inay qaado ayaan rabnaa. waxa weeye mar rabna annaku in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan, yacni maalanba barabagaando iyo wax kaleeto. mas'uuliyadaas dowladda ayaan ku ognahay, ayada ayaan u dhiibnay. ka bacdina waxa weeye ayada waxaa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida ayada laga rabaa. waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinay shacabkeenna sharafta leh, qiimaha badan leh daraadiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanan la rabinin. wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay, maadaama mas'uuliyiintii haddana ahlu sunna wal jamaaca, mas'uuliyiintii Galmudug, madaxii xukuumadda Galmudug aan ahay. waxa weeye Galmudug oo dhanna waxaan u soo jeedinayaa muwaafaqo iyo midnimo ayaan u soo jeedinayaa. marka dhammaantiin waxaan idin leenahay shukran jaziilan baa idin leeyahay. wabillahi tawfiiq. bismillaahi raxmaani raxiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaan jeclahay inaan hal kelimo meeshaan ka soo jeediyo. marka ugu horeysa ummadii Soomaaliyeed, ahlu sunna wal jamaaca iyo qolooyin kaleeto oo aan markaa iyagu ahlu sunna nisbadeeda magaceeda sheegan, mid kastoo ay ahaayeenba oo meeshaan dagaalku ku qabsaday, dhibaatada xoog lihi ku dhacday, habad iska socotaahi ay meel dheer uga wada daba tagtay, wax dhintay iyo wax dhaawacaba yeeshay, dadweynihii oo la kulmay qax iyo dhulkoodii oo ay ka baxeen. waxaan u soo jeedinayaa tacsiye kaamil ah oo aan leeyahay wixii masiibada ahayd oo idinku dhacday waa idinka tacsiyeynaynaa. arannay inaan u tanaasulno ummadda Soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanan ka dhiganin arrin aan annaguna qayb ka qaadanno inaysan noqon, ee aan ogolaanno oo aan nidhaahno waxaan doonaynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado, laakiin aan dagaal iyo dhiig la daadiyo wax loo qaybsan. in badanna waa ku dhawaaqnay. markii aan aragnay inaysan shaqaynayn oo dagaal iyo layn dadkii la laynayo ay soo baxday,
intii aan qayb ka noqon lahayn waxaan nidhi qayb ka noqon mayno dagaalka noocaas ah. waxaan rabnaa marka in aan caddayno, halkaan ka caddayno ahlusunna waljamaaca wax laga tanaasuli karo ma ahan, waa caqiidada dhan oo islaamka lagamana tanaasuli karo. laakiin wax alla wixii kale oo dhan waa laga tanaasuli karaa. markaa waxaan jeclaysanay dhibka markaa ummaddu ku jirto bal in si looga baxo in la helo. maxaa yeelay mu'miniintu waxay la mid yihiin hal jir ah oo qof leeyahay jasadkiisoo kale weeye. oogadaadu sida ay kuu xanuujinayso ayaa qofka mu'minka ah oo walaalkaa ahina kuu xanuujinaya. marka xanuunkaasna wada qabanahaya daraaddeed ayaan waxaan jeclaysanay dhib wax u keenahaya inaanaan ka qayb qaadan. arrintaas marka sidaasoo ay tahay wax ahlu sunna waljamaaca la yidhaahdana wax laga tanaasulay iyo wax laga tanaasulayo midna ma ahan. laakiin wixii dhib ummadda u keenaya unbaa laga tanaasulaa. ayadaas unbaan tanaasulkanagu uu ahaa ee wax kaleeto ma ahayn. markii la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi ayulmuslimiina afdal yaa rasuula allah, maxaa ummadda keebaa ugu fadli badan baa la yidhi. anfacuhum lilmuslimiin buu yidhi, muslimiinta kii ugu waxtar badan baa ugu fadli badan buu yidhi. midkii ugu qur-aan akhris badan ma odhan, midkii ugu salaad badan ma odhan, midkii ugu sadaqa bixin badan ma odhan. waxaa la ogaaday ama allisaan ha lagu anfaco, ama maal ha lagu anfaco, ama ha lagu anfaco dabiibnimo iyo dhakhtarnimo wax loogu qabto. xaqiiqdu waxay noqonaysaa waxa weeye waxa keliyahoo aan jecelnahay in aan gaarsiino ummadda walaalahana ah wax alla wixii ummadda dhibahaya annagu weliganaba waa nala ku yaqaanay, waa ka tanaasulnaa, waana ogolaanaa in aanan qayb ka noqon. laakiin ahlusunna waljamaaca wax laga tanaasulayana ma ahan, waana taagnaan doontaa, waa jiri doontaa, waana jidhaa. ilaahayna khayr baan uga rajaynaynaa ummaddaa dhibkii gaaray, ilaahay inuu bedel khayr lana siiyo intii dhimatay, intii dhib gaarayna ilaahay uu daaweeyo, intii dhibaato kaleeto la kulantana ilaahay dhibta ka qaado. khayr baanaan idiin rajaynaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhanka kale shacabka ku nool magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey dagaalkii dhuusamareeb ku dhex maray ahlu sunna iyo dowladda federaalk soomaaliya. sidii marka hore ugu bilaabatay aragtideedu waa taas. waxaa markaa haddii alla ku idmaayo ay noqotay haddii ay dagaal isku beddeshay, weli waxaan u qabaa inay dhammaystir u baahan tahay oo sharcigu uu shaqeeyo, dowladnimadu shaqaydo, nidaamku shaqeeyo. kuma filno. waxaan qabaa in deegaanka dib u heshiisiin dhaba ka gasho dowladda laftirkeedu oo ay u cag dhigto oo wixii xasrad kicinaya ay ka fogaato. walaal waxaan aad ugu xunnahay in lala dagaalamo culimadii shalay ayagu dadka difaaceen iyo dalkii culimadii mudnaa ixtiraamka iyo abaalmarinta in lala dagaalamo waa waxaan aad uga xunnahay, mana aqbali karno. waxaan u qaadanaynaa hana lala shaqeeyo culimadii shalay shaqada ogeyd la qabtana in loogu abaalguday xabad iyo dagaal iyo inaysan haddeertaan xaalad ay ku sugiin aan la garanaynin ma ahan wax wanaagsan, mana ahan wax laga filanayay. dalkan meel buu u socdaa, dalkan meel buu u socdaa. meesha u socdana waa inuu helaa dawlad xuduudaheeda iyo gudaheeda iyo ammaankeeda ilaaliso. dhuusamareeb arrinteedana waxay ka mid tahay caqabadaha soomaaliya laga qaadaya caqabad ka mid ah. hadday saakay tii ugu weyneed waa laga qaaday, haddana waxaan ilaahay ka baryaynaa dawladda inay wixii kaloo dhiman oo dawladdiidka ee tartiib tartiib u fududayso. haddaanahay mas-uuliyiinta, haddaanahay shacbiga soomaaliyeed, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya, shaqada ay wadaan ciidamada qalabka sido waa ku raacsannahay, waa ku taageersannahay. weliba waxaan ku sii xoojinaynaa 4 sanoo dambe hadduu ilaahay idmo sidii ay ku soo laaban lahayn. hadday soo laabtaanna federaal looga taqalluusi lahaa. run ahaantii dagaalkaa ka dhacay dhuusamareeb ma fiicnin, sababtoo ah dad walaalaa shacaba ayaa meesha waxyeelo ku noqon. dagaalka sokow dawladdu waxay awooddaa inay
wada hadal wax lagu dhameeyo wax wada hadal lagu dhameyn lahaa ayaa waxa loo isticmaalay awood loogu talagalay in cadowga shabaabka lagu isticmaalo wallahi horta dagaal wax lagu farxo maaha dagaalna muxuu ahaa Soomaalidu waxay sheegtay tiraada wiil kuma dhashay wiil ku dhinta aad anagu xumaartay dagaal ka dhaca meeshaas laakiin sababaha jiro oo aniga ra'yigayga ila tahay meesha laba garab ka jirtay ahlu sunna iyo dawladda ahlu sunna intii oo lala soo mari karo waa lala soo maray muxuu ahaa si walba waa la soo yeelay haddana kuma farxi kara laakiin waxaan isdheelahay muxuu ahaa in ahlu sunna meesha inay qolo u harto meesha way ku fiican tahay siyaasiyiinta ugu tunka weyn ee ka soo jeeda deegaanada galmudug ayaa dagaalka dhuusmareeb ku tilmaamay mid lagu degdegay waxayna ku eedeeyeen madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya dagaalkii ka dhacay magaalada dhuusmareeb weli ma cadda in hoggaanka ahlu sunna la keeni doono magaalada muqdisho balse warar hoose ee la helayo ayaa xaqiijinaya in laga yaabo in hoggaanka ahlu sunna loo soo wareejiyo magaalada caasimadda ee muqdisho si loo dhameeyo khilaafka xooggan ee ka taagan balse warar hoose ayaa sheegaya hoggaanka ahlu sunna laga yaabo in la keeno magaalada muqdisho si loo dhameeyo khilaafka ka taagan magaalada dhuusmareeb